dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laba haween ah ay ku lug lahaayeen qaraxii 24 bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay lala beegsaday guriga dowladda hoose ee magaalada Muqdisho laguna dilay duqii magaalada iyo 8 qof oo kale. dowladdu waxay sheegtay in gabadhaysa soo miidaamisa ay qabtay baahiyaha gaarka ah isla markaana ay ku tagrifashay xaadifadii loo hayay. dowladdu waxa kale oo ay sheegtay in weerarkaasi ay ku gacan siisay gabadh kale oo iyada la shaqaynaysay. dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in labada haweenka ah ay qaateen fasaxyo isku dhow isla markaana ay u safreen dhulka ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in baaritaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaalaysiinayay labadaasi qof ee dumarka ah. haddaba dowladda Soomaaliya ma shaacin magacyada labada qof ee dumarka ah, laakiin baaritaan ay samaysay idaacadda Voice of America gaar ahaan barnaamijka galka baarista ayaan ku ogaanay in labada gabdhood ay magacyo qalad ah siiyeen dowladda Soomaaliya markii la shaqaalaysiinayay. gabadha ay dowladdu sheegtay inay isqarxisay ayaa in muddo ah isticmaalaysay magaca Basiire Cabdi Maxamed, laakiin magaceeda dhabta ah waa Maryan sida uu ogaaday galka baaristu. gabadha labaad ayaa iyana ku shaqaynaysay magaca Degan, hase yeeshee magaceeda dhabta ah waa Hodan. waxay sidoo kale Hodan ka been sheegtay iskuulka ay dhiganaysay markii shaqada la qorayay. Hodan waxa la aaminsan yahay inay weerarkaasi ka badbaaday isla markaana ay u baxsatay dhulka uu ka taliyo ururka Al-Shabaab. baaristaasi waxa kale oo aan ku ogaanay in markii ay fasaxa qaateen labada gabdhood ay fasaxaasi ku horreysay Hodan kadibna Maryan ayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegyadii xorriyadda Soomaaliya ee 26 Juun iyo 1 Juulaay. wararka aanu ka helay dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in Maryan ay ku dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadaha 26 Juun iyo 1 Juulaay oo labadaba uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya. hase yeeshee waxaa baaritaan ku jira inay doonayeen inay bartilmaameedsadaan madaxweynaha iyo in kale. sidoo kale waxaa baaritaan ku jirta inay labada munaasabadoodba ka qayb galeen. wararka kale ee dhinaca amniga ee aynu helay waxa ay sheegayaan in laba digniinood ay bixiyeen laamaha amnigu kuwaasi oo ku saabsan weerarro dhici kara. mid ka mid a labada digniinood waxa uu si gaar ah u tilmaamayay in weerarkaasi lala beegsan karo xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. wararka kale ee dhinaca amnigu waxa ay sheegayaan in ka hor intii aysan fasaxa aadin Maryan ay u tagtay Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayna u sheegtay inay u tagayso dhakhtar ku yaala dalka Hindiya, taasi oo ay ka been sheegtay sida ay xogaha amnigu sheegeen. waxa kale oo ay wararku sheegeen in gudoomiye Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow uu siiyay Maryan lacag dhan $10,000 si ay isugu soo daweyso. waxa kale oo aan baaritaankaasi ku ogaanay in maalintii uu qaraxu dhacayay labada gabdhood midkoodna aan lagu samaynin baaritaan isla markaana ay ka gudbeen goobihii baaritaanka iyadoo aan wax baaritaana lagu samaynin. wararka amnigu waxay intaas ku dareen in gabadhii baaritaanka ku samayn lahayd xilligaasi ay u baxday waqti kooban oo biririf ah. labadaasi gabdhood ayaa la sheegay inay markaasi kadib tageen xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ay ka codsadeen inay la kulmaan. hase yeeshee kaaliyihii gudoomiyaha ayaa ku adkaystay inuu mashquulsan yahay oo uusan qaabili karin. gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waxa uu ku dhaawacmay weerarkaasi. waxa uu ka warramayaa sida ay wax u dhaceen. horta shirka waa shir arbaca la qabto waxa uuna ku saabsanaa shir la yiraahdo tubaha. saas ogtahay xukuumaddu waxay samaysay qorsho oo loogu magac diray tubaha. tubtan waxay ka mid tahay tubta dhaqaalaha, gaar ahaan waxaana looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta caasimadda sida dhismaha laamiyada, nalaynta iyo canshuuraha iyo nadaafadda iyo bilic soo celinta ayaa laga hadlayay. marka saacaddu markay ahayd 10 saac aan ku qeyrsiiye bar ayaa waxaa mar ka war helnay nin kastoo dhulka jiifa. anigoo shakhsiyan markaan ka hadlo waxaan soo kacay anigoo gacanta dangiigsanayo oo dhulka fadhiyo oo maskaxdeeduna ay maqan tahay. kadibna waxaan kusoo baraarugay anoo isweydiinayo waxa meesha ka dhacay. markaan kor u fiiriyey waxaan arkay cid igu soo daadanayso. waxaan isla markii igu soo dhacday qarax in aniguna la egtay. kadib ayaa waxyar tartiib maskaxdeyda soo laabatay. aan ogaaday inaan joogo xaruntii gobolka Banaadir oo shirka ka socday. waxaan maaday inaan soo kaco, waan kici waayey. laakiin markii dambe ayaan niyadda waxaan ku fikiray haddii sidaan aan kusii joogo in cadowgu uu nagu soo galo halkaas uu nagu xabadeeyo. sidaasi ayaan soo baxay oo si xoog leh soo istaagay. sidaasi marka qaraxii uu u dhacay. laakiin anigu maqal ahaan xitaa qaraxa ma maqal, anoo dhulka yaala marka arkay markuna.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta xus ducaa u qabatay gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaana garoonkii hore ee kubadda cagta ee Banaadir loogu magac daray Injineer Yariisow. Haroon Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halka kala socoteena waa VOA Washington. galab wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhamaantiinba dhegeystayaal waa VOA Washington idinka soo gaaraysa haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed. magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay kulan ducaa oo loo sameeyay gudoomiyihii gobolka ahaana duqii magaalada Muqdisho Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo dhawaan ku geeriyooday qaraxa lagu weeraray xarunta gobolka. munaasabada lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kalena garoonkaasi loogu magac daray Injineer Yariisow. madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadaasi waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. madaxweyne maxamed cabdullaahi oo ka hadlaya isku soo bax duco ah oo loo sameeyay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Yariisow ayaa soo hadal qaaday dagaalka dowladdiisa ay kula jirto al-shabaab isagoo Xuseen oo soo maray marxalado kala duwan. cadowga nahaya oo aan dagaal kula jirno wuxuu soo socday muddo dheer marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan wuxuu hadda taagan yahay waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan iyo taagan yihiin markii ay u babacdhig waayeen ciidamadeena geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambeysay ay ka qabsadeen maxaan ku yiraahdaa Barire iyo Mubarak iyo Owdegli uma baacdigi kara. madaxweynaha ayaa sheegay al-shabaab xilligan inay isticmaalayaan xalalo cusub iyagoo isticmaalaya dadka waliba ku wada u naxariisana ayuu ka sheegay fagaaraha laakiin inay qof maskiin ah oo waxba garanaynin ay ku soo dhaxdaraan dadka oo nooc oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo hal doorkeena ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambeysay waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno inaan dhiiranaan ka qaadno inaan xoojinno la dagaalankooda inaan adkeenno amnigeenna inaan adkeenno wada shaqaynteenna. madaxweynaha ayaa ugu dambeyn kaga dhawaaqay garoonka kubadda cagta Cruz Stadium in laga bilaabo maanta loogu magac daray gudoomiyihii geeriyooday Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. maanta waxaan ugu magac darnay stadiumkan waxaan ugu magac darnay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow yaan ugu magac darnay sacrifice ku soo maray naftiisa u huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo wadankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa ka adkaanaynaa cadowga meel kasta ay joogaanna waa ugu tagaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka qaadaynaa wixii dhacay geesinimo iyo adadkeen yaan ka qaadaynaa. wasaaradda amniga gudahana maanta war ay ka soo saartay qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose kaas ay ku geeriyoodeen gudoomiyaal degmo agaasimayaal iyo duqii Muqdisho. wasaaraddu waxay sheegtay qaraxa inay furisay ruuxa weynay ah oo ahayd mid kamid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah kana tirsaneed shaqaalaha aqalka dowladda hoose. warka waxaa lagu sheegay in labada gabdhood oo mid isqarxisay aysan marin hanaanka hubintii loo baahnaa ee shaqaalaysiinta marka loo eego. wasaaradda amniga gudaha ayaa sidoo kale xustay in ruuxan haweeneyda isqarxiyay qaba baahiyaha gaarka ah madaxda gobolka u muujiyaan caadifad gaar ah maadaama baahi gaar ay qabtay balse ay ka faa'iideyso sidaasi. wasaaradda amniga tafaasiil intaas si dheeraad ah kama soo bixin marka laga raabay inay sheegtay inay jiraan dad loo soo qabqabtay qaraxaasi. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho. dowladda hoose kaas ay ku geeriyoodeen gudoomiyaal degmo agaasimayaal iyo duqii Muqdisho. wasaaraddu waxay sheegtay qaraxa inay furisay ruuxa weynay ah oo ahayd mid kamid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah kana tirsaneed shaqaalaha aqalka dowladda hoose. warka waxaa lagu sheegay in labada gabdhood oo mid isqarxisay aysan marin hanaanka hubintii loo baahnaa ee shaqaalaysiinta marka loo eego. wasaaradda amniga gudaha ayaa sidoo kale xustay in ruuxan haweeneyda isqarxiyay qaba baahiyaha gaarka ah madaxda gobolka u muujiyaan caadifad gaar ah maadaama baahi gaar ay qabtay balse ay ka faa'iideyso sidaasi. wasaaradda amniga tafaasiil intaas si dheeraad ah kama soo bixin marka laga raabay inay sheegtay inay jiraan dad loo soo qabqabtay qaraxaasi. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.